carwa quraab mar walba diyaar waxay u tahay inay macaamiisheeda ku booqato boos kastay joogaan bar kastay marayaan bayd kastay fadhiyaan xataa baabuurka bajaajta korkeeda iyo kuwa baallaha fulee biraha soo xidhaya bartoodaannu ugu tagnaa si aan u ogaanno baahidooda quraab barta ay marayso jaamac maxamed good waa mulkiilaha carwa quraab oo carwo aan nooceeda horey loo arag isla markaana ka iibisa noocyada kala gedaysan ee midhaha jaamac oo aanu kula kulanay bartamaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayuu waraysi gaar oo siiyey telefishinka caalamiga ee Hesaab TV waxa uu ka warramay sababihii uu ku aasaasay carwa quraab goortii uu aasaasay mustaqbalka halka uu hiigsanayo carwa quraab iyo caqabadaha ku gadaaman carwada waraysigeena magacayga waxa la yiraahdaa jaamac maxamuud maxamed ciise good oo ku magac dheer carwa quraab waxay tahay carwadii dadkii dalka kala cayn midhaha carrigeena ku yaallay caadilo ku manaystay dadka uu ku casuumay bayna caan weyn ku tahay xilliga aan aasaasay haddaan u soo noqdo 2014 dabayaaqadiisii baan carwa quraab aasaasay waxyaabahan ka aasaasay waxay ahaayeen kiilo iyo badh goba oo xilliga midhaha gobka oo xilliga u dhigmayay $1 iyo badh waqtigaas oo ahaa 30,000 shilin ay isku ahaayeen marka carwadii ma sha Allah ilaahay maada ka gaadhay si wacan bay u shaqaysay waa horumartay وهاجاج نوعية مدهو عاد جدو يصيدوا كل ديجنا ده عاد ككنتو بالنوجا ورن نوعية مدها عن جدا وحيهين وحي كليهن أي عين مراد عرق إنه كي الله عادل وكم من الصدات كوكو عسومي سدا مريه تانكا مريه جوبكا مريه بردها مريه يعبتا مريه قمشكا مريه عيدكا مريه دفرورتا حبكتي عدادة iyo ayman kala wali soo gaareen carwada laakiin carwada rajaynayso inay soo gaaraan deegaanada aad ka keento midhahan kala nooc ah sidoo kale midhaha hobto kale iyo dhafaruurta iyo midhaha gumasho kale deegaanadee baad ka keentaa iyo siyaabaha ay kugu soo gaaraan oo kale bal adoo soo koobeen waa su'aal wacan walaalkay deegaanadan ka keeno hadba goobtay ka baxaan geedkood ka bislaado gayigeena ku taaliyo gurigeena hooyaan ka keena marka goobaha ugu badan dadku iska kala yaqaaneen midhana waa midhahood midhana waa midho nugaaleed midhaha hawdka haddaynu soo noqono midhaha hobta midhaha yicibta midhaha gomashka midhaha dhafaruurta ciidka xabagta cadaada caynkaasi waa midhaha hawd baanu ka keenaa hadba sidaan u heli lahayn annaga ku hawlan midhaha bardaha iyo heeliga iyo inta kale la halmaashana waxaanu ka keenaa waa midho nugaaleed oo iyagana sidii aan u heli lahayn annaga ku hawlan oo macaamiisha u soo gaarsiin lahayn waan gartay midhaha haddeer intan oo kale ee qiimayaashooda siyaabo kale u qiimaha ay leeyihiin midhaha kale haddaad nooga waranto seebaad u qiimaysaa oo maxaa dadka ka siisaa macaamiishaada waa si wacan cabdirashiid walaal Allah ku barakeeyo anagoo tixgelinayna macaamiishayada jeebkooda iyo jaaniskooda iyo jeclaantooda annagoo ugu shaqaynana xarunta guud ee kaydka diyaarinta iyo kafedeynta bay laantani ka soo ambabaxdaa waa laanta socodka ee suuqgeynta laantani diyaar waxay u tahay inay macaamiisheeda ku booqanno boos kastay joogaan bar kastay marayaan iyo bayd kastay fadhiyaan xataa baabuurka bajaajta korkeeda iyo kuwa baallaha fulee biraha soo xidhaya bartoodaan ugu tagnaa si aan u ogaanno baahidooda quraab barta ay marayso annagoo ugu shaqaynana labagelin socod iyo guuraha habeenimada si aan u gaarno goob kastay joogaan haddaan u soo noqonno xagga jeebkaanu u tixgelinayno midadaalo mariya maaweelo cabaara xidhmada la yiraahdaa waa qiimo yar waxa ka sareysa xidhmo la yiraahdo xidhmo saaxiib iyo xarun wada fadhi iyaduna tiibay ka qiimo sareysaa waxa ka sareysa xidhmo la yiraahdo xidhmo family oo xaafadaha loo qaato caruuruhu ay ku farxaan oo faa'iidadaas oo dhan wadata iyana taas xidhmo saaxiibta ka qiimo sareysaa waxaanu u diyaarinay macaamiisha adeegyo la yiraahdo la safar la sadcaal sahay dheer u qaado sidaad goobta ku aragsan oo laantayada ee safarkii sadcaalka aan ugu diyaarinay marka annagoo tixgelinayna jeclaanta macbiilkayga iyo jaaniskiisa iyo jeebkiisaba baanu intaas waxaynu isu daba dhignay macaamiishayada tani waa xabagta cadaada haa waa xabagta cadaada dadku runtii Soomaaliyeed sadkeeda way taqaanaa sabaday doontaba ha joogto ama sabiba ha ahaatee waxtarkeeda haddaan soo noqono waa cilad bixinta curqyada caloosha caawinta dhabarka caynkaas wax tartaa ruuxa caadil ku daweeyo kuwani waad garanaysaan waa midhihii toonka midhaha toonku la isaga warrami maayo waxtarkooda iyo faa'iidadooda balse waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay
dhulkeennay ka baxaan dhirteennay ka go'aan weligood ma dhacaan dhaydkood ma qorro tabtooday u dhisnaadaan dhandhikood ma xumaado waa dheefaynu adduunweynahoo dhan dheerrahay waxaan dheyd lahayn misna aan dhacayn hadduu weligii dhex yaallo dhulka soomaaliya ee dhirtiisoo qudhaa laga helaa waa qodob waa marka labaad aan u soo noqdo faa'iidadooda labaad dee sidaynu wada ogsoonnahay gawska raamsigu waa u dan marra waa u daryeel marra waaba u daawo li'annahu maxaa yeelay gawska raamsi waayaa inuu raabuqayo salka uu ka ruxmayo rifan baa gelaya qofkuna raxaraag buu daynayn suus baa igu raagiya iliga ay rifmayeen raxaraagga ma joojo waa gaws raamsi la'aan aan qudhaab lagu ruugin marka saas iyaguna waxtarkoodu yahay waayahay sidoo kale waxaa ii muuqda midhaha marka laga soo tago midhatoonka iyo xabagta cadaadda iyo dhafaruurka iyo gamashka midhaha qaybaha kala duwan ee aad gado waxaa ii muuqda midhayaal kale oo sida sabiibta oo kale waxay ka mid tahay waxyaaba aan iyagu hawdka ka bixin ama dhulka nugaashaba aan ka bixin marka midhahan oo kale seebay kugu soo gaadhaan ama xaggee baad iyagana ka keentaa midhaha sabiibta oo kale waa su'aal wacan walaalkay cabdirashiidow midhaha waa runtaa sadka dhulka sabiibtu siyaaday ku tahay magac soomaalina annagu waxaanu nidhaahnaa dubya diirla markaannu eegnay darajaday wadato ah inaan dubna laga qaadayn diirra laga fujinay dabana aan laga goynaynin taanka markii la gashana iligaba aysan daalinayn waannu magacaa dubya diirla u bixinay magac soomaali ahaan sabiibtu saad sheegtay sadka dhulka siyaaday ku tahay sababbaasee keentay sababta keentay walaalle waxay tahay sadkii dhulkoo miidhan oo maraya baa macaamiishu su'aasheeda keentay oo waxay dhaheen carwey sabiib ma haysaa muddo dheer baannu saabaalinanoo waxaannu lahayn warsadkii dhulkoo miidhan baa maraya midhaha sacuudi ku yaalla iyo sabiibka maxaad ku falaysaan miyadan soomaali ahayn warsadkiinna jeclaada oo sabadiinna jeclaada oo subaddiinna jeclaada oo sawdkiinna jeclaada su'aashii hadhi weyda annaguna sabiibtii waannu soo qaadnay waan gartay hadda intan oo kale magacooda maxaad ku sheegtay waxaa la yidhaahdaa walaale la safar la sadcaal sahay dheer ha u qaado waad aragtaa laanta dawaarintay martay maxaa qiimahooda kale intan oo kale imisaad siinaysaa intan oo kale qiimahooda walaalkii waa si fiican annagoo dee shayga uu yahay marba qiimaha uu noogu yimaado qarshiyadda u eegana haddeertani waa $2 qiimahan oo kale walaalle waxaa ka sii yar midadaalo marya maaweelo cabbaara waa 7,000 oo shilin xidhma saaxiib iyo xarun wada fadhido waa 13,000 oo shilin xidhma faamilida xaafadaha loo qaatay carruurtu ay ku farxaan waxa weeyaan 29,000 oo shilin marka saasaan anagu u tixgelinayna jeebka macaamiisha aanu ma garanaysaa u kala qorshaynay waa gartay faa'iido intee le'eg baad ka sheeshaa midhaha marka aad maalintii oo dhan wareejiso sidoo kale ma hal mar baad soo wada qaadaa oo halkaas markay kaa dhammaadaan aad tuurtaada soo rarto ayaad iska noqotaayoo dib uma soo qaadin mise marba markay dhammaadaan macaamiishu dhammaysato baad haddana dib u soo qaadaan walaal waa su'aal wanaagsan faa'iido intee leeg baad ka heshaa waa arrin wacan runtii taa waxaan kaga soo gaabsanayaa dee nolosha aniga dadkaygu waa kifaaya alxamdulillahi rabbil caalamiin tan ma dhowr jeer baad laba noqotaa mise ama aad soo qaadaa mise hal mar annagu xarunta guud ee kaydka diyaarinta iyo kafadeyntu waxay u furan tahay inay mar walbaba ay u diyaariso laanta socodkii suuqgeyntu adeeggii ay ka qaadi lahayd inuusan kala ku dhicin macaamiishu mar kastoo ay soo dhammaado laanta socodkii suuqgeyntu adeeggan aanu dusha ku sidnaa dib baannu u noqonnaa annagoo ka soo qaadaynaa xarunta guud ee kaydka diyaarinta iyo kafadeynta noo ah waxaa nagu maqaalaa inaad guri ka dhistay faa'iidada midhaha oo carwa qudhaab weliba uu gebagaba marayo arrintaas maxaa ka jira alxamdulilah waa si waxaan walaalle way jirtaa guri waannu ka dhisnay alxamdulillahi rabbil caalamiin waannu ka iibinay dhulka waannu ka bilownay gebagabuna marayaa goortuu dhammaadana dadweynaha waannu u soo bandhigaynaa isagoo carwa qudhaab ku qoranta insha allah waan gartay waxaad nooga warantaa sidoo kale bulshada waxaa jira dhallinyarada siiba dad badanoo aaminsan in ay shaqola'aan waddanka taallo oo qaarkood ay tahriib waddamo shisheeye u aadaan qaar kale ay suuqyada ku camalla yihiin iyagoo u arkaya shaqadan xitaa aad hayso qaar u arkayaan dan yar oo kale shaqa yar oo kale adiguna waad nooga warantay faa'iidadooyinkooda kale marka dhallinyarada Soomaaliyeed oo kale maxaad ku boorin lahayd waa si wacan walaalle waxa weeyaan runtii dhallinyarada Soomaaliyeed ama shaqadan aan hayo u arkaysa dadka u arkaya dan yarta oo markaa fadhiga ka doorbidaya taa waxaan leeyahay shaqa sharaf leh shaxaadka adduunka diintu siday sheegtay haddaan dhankan tahriibta dhallinyaradu runtii dhulka shaki dadka kama saara inay maalin walba malyuumaad dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo dalkooda dheefsa garan waado oo dhibaatada ka ilaashta dheeftana gurta inay badaha adduunweynaha ku dhimanayaan wax qarsoon ma aha inay xabsi kasta oo wadan ay ku xidhan tahay dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ay ku dhiban yihiin dhulkooda ay ka tageen dhibaato un bay ka kororsadeen anigu suugaanta waxaan ugu soo gaabinayaa tixda carwa qudhaab caanka weyn ay ku tahay ee magaceeda la yiraahdo dhooftiid
taasoo anigoo 9 cayngadayo carrigeenna ku yaallo caadil uu ku manaysto dadka uu ku casuumay ay dadku markaa yidhaahdeen carwo quraabay dalka Soomaaliya shaqadiisu kuma anfacdee iskaga dhoof taa markaa laajigeetaan kaga jawaabay waxay ahayd aniguna ka shaqada iyo sharafta leh aan shisheeye ahayn watan aan u aqaana ninka debed u dhaantaynaya baan dheeli tirayaaye oo dal dhoof ku wada taamaya baan baaq u dhigayaaye dhib baa taalla debedaha ninkii dheregu haysto we ruux dhulkiisa jooga ma aha dheeldheele dhirtii baa ilaahay iga dhigay dheeman lacageede markii aan dhaqaaqaba midhaan soo dhufanayaaye maxaan debed u dhoofaa tanaa dheregi taallaaye marka dhalinyarada ha rumaysato inay dheregtu tan taallo adiga marka laga soo tago midhaha waxaa kuu dheer suugaan badan oo iyo hal abuurnimo aad inta badan ku maaweelisa bulshadaada macaamiisha markaad midhaha ka gadanayso iyo weliba dee sidaan aanu hadda arkan maansooyinkan aad tirinayso marka ma waxaa jira hal abuurnimada mahidda u leedahay mise waa hibe eebba ku siiyey oo aad carwada iyo ka curiso marka aad shaqa maalmeedkaaga walaal waa si wacan horta maansadan marka koowaad waa hibe eebbay siiyey quraabkaana sii hagaajiyey faa'iidada uu leeyahay Soomaaliyeed bay ka mid tahay midkaasaan ku soo koobaya waa quraabka Soomaaliyeed waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed waagay xigmadda lahayd ee xishoodka lahayd ee xushmadda lahayd waa waagay sadkeed iyo sabadeeda iimaansatay bay ahayd intaasaan iyada ugu soo koobaya waan gartay gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa maxaad jeclaan lahayd in ay ka caawiyaan haddii ay jiraan wax caqabad ah oo haysta carwadaada carwa quraab alxamdulillah waa si wacan walaalle horta ilaahay mahad ka gaadho marka hore macaamiisheeda dhammaan meel kasta joogaan macaamiishayada dal iyo dibad beled iyo baadiye bar kasta joogaan waxaanu leenahay carwadii dadkii dalka waanu idii furay maadaama maaragtay su'aasha deer gabagaba tahay waxaanu sheegaynaa macaamiishayada inay dhammaanba u shaqaynayaan laamihii socodkii suuqgeynta laantii xaruntii guud ee kaydka diyaarinta kafadeynta aanu dhawaanna u soo siyaadin doono xarumo hor leh haddaan taa ka soo noqdo caqabado bulshada ma kala kulantahay oo maxaad se u tabin lahayd bulshada alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhammaan bulshadu waa macaamiil iyagoo u qaybsama macaamiisha loo yaqaano nooca baaqaha loo yaqaano nooca loo yaqaano baarbaaraha nooca loo yaqaano baayacaha nooca loo yaqaano beecsadaha iyo nooca loo yaqaano bininshaha intubana waa bulsho macaamiilo carwadu u baahan tahay iyaga sidaasaysan waxa caqabada mid walbana bulshada farxad iyo jawi wanacan iyo qaalab wanaagsan iyo qancin baan ugu adeegnaa ugu dambeyntii jaamac maxamed good mulkiilaha carwa quraab waxa uu maxaad jeclaan lahayd in laga caawiyo runtii dee haddii qofka leeyahay maxaad jeclaan lahayd qofku markii maskaxdiisa wuxuu odhanayaa wartolo maxaad doorataa balse anigu waxaan leeyahay dushaydaa raran gaarigii bedeli lahaa maan anigu u baahnay haddii kalaamka alle insha Allah idanka alle ka dhigo Cabdirashiid Xasan Cadde telefishinka caalamiga ee Hisaab TV magaalada Laascaanood